bal ka waran haddii uu beri bilaamo dagaalka saddexaad ee adduunku 15 daqiiqo kadibna madaxweyne kasta uu ku amro dadkiisa shacabkiisu inayna guryaha ka soo bixin waxoogaa kadibna bandow la saaro bulshadii iyo gaadiidkiiba dawladuna shacabkeeda ay ku amarto inuuna qofna banaanka u soo bixin wadan kastaana uu xidho xuduudiisa cidna ayna ka soo gelin cidna ayna ka bixin ka waran daqiiqada kadibna haddii aad maqashid dhawaaqa digniinta ah ee nukliyeerka dadkii taajiriinta ahaana ay bilaabaan inay isku qariyaan dhulka hoostiisa 2 cisho kadibna la waayo isgaarsiintii oo dhan waxaana go'i doona leyrka iyo internetka oo dibna uma shaqaynayaan adduunkuna ka waran haddii uu hal mar isku bedelo mugdi bilaa leyd bilaa internet bilaa TV bilaa waxba 3 cisho kadibna furaha ugu horeeya ee cusub ayaa la isticmaali doonaa si loo dejiyo falcelinta silsilada ah ee argosiga 4 maalmood kadibna hawadu waxay noqon doontaa mid wasakhaysan oo suna nukliyeerka awgi waxaana sababaya shucaaca uu wato nukliyeerku markuu qarxo 4 wiig kadibna dadku waxay waayayaan waxay cunaan wax soo saarkii cuntaduna wuu istaagi doonaa cunto yaraan ayaa dhacaysa dadkuna way isku dili doonaan dadka adduunka ku nool oo dhan 2 bilyan oo kamida waxay u dhimanayaan cunto la'aan milyan kale oo kamidana way barakacayaan dadka inta yare soo hadhay ee badbaadayna waxay dib u bilaabi doonaan inay dhisaan dhismayaal cusub balse dhulku wuxuu u sii ekaan doonaa muddo mid cabsiya bal ka waran daawade wadankaad joogtid haddii uu galo xaalad dagaal oo degdega weli ma ka fikirtay amba ma qorshaysatay qaabka isku badbaadin lahayd sideed u wajihi lahayd xaalad dagaal ambaad isugu dayi lahayd inaad naftaada difaacdo hore ma uga fikirtay su'aashaas inaad isweydiiso kommentiga ku soo qor fikirkaaga waxaad gaarsiisaan fiidiyogan 5,000 oo like waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan waa anigoo ah Nadari Saciid nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta halkan aanu ku midownay si aad ula socoto markasta fiidiyoyada cusub ee soo dhigo waa inooyo mar kale iyo fiidiyoga kan xiga